Empire YouTube channel kusoo dhawaada kulanka ay inooga barateen khamiis kasta oo ah agaasimaheena Ramin oo ah agaasimaha company-geena Opulence Global talaado walba ayuu wuxuu halka inoo soo fariistaa in uu wax inaga baro buug uu qoray 22 sano ka hor oo ah buug runtii adduunka oo dhan meel kasta maanta laga isticmaalay inta af lagu bedelo waa yaabaysaa annaga asagoo qoraal af kuma inuu bedelin laakiin annaga dadka turjumaa ka midna sababta ay tahay wax allaala wuxuu ku dhaho English ayaynu afkeena hooyo ku bedelaa maalinta khamiista soo maanta ciwaan maxaa looga dhigay kulanka maasha Allah waxaa looga dhigay how to make 5 figures in the next 120 days with the MO box aka the boss box sidee hadduu ilaahay idma 4 biloodoo soo socoto ayaad u gaari kartaa income-kaaga ama dhaqaalahaada 5 figure waxa waaye 10,000 iyo wixii ka sareeya sidee ku gaari kartaa 4 bilood soo socoto qorsho ayaa naloo sameeyay haye wuxuu ku leeyahay laba loo kala qaadaya mid waxa waaye 1,200 sidee u sameyn kartaa 30 cisho ugu horeysa hadduu ilaahay idmo soo hadda soo gashay hadda bay faraaxo kala day soo gashay 30 cisho ugu horeyso sidee u sameyn kartaa 1,200 nooca partka labaadna waxa waaye sidee 10,000 u sameyn kartaa 4 bilood gudahood wuxuu ku leeyahay si kasta oo aniga maanta aan afeefu dhiganaya si kasta aan maanta qorshaha idin la dejiyo ku leeyahay haddii aadan ku dhaqaaqin dabcan ma gaaraysid gaariga it doesn't matter to leeyahay it doesn't matter how good the vehicle is if you're not driving it will not work si kastuu gaariga u fiican yahay haddii aadan wadaynin furaha ku rogoonin ma dhaqaaqayo soo waa afeefu dhiganayo balaankan way shaqeen waa kaliya qofka ku dhaqaaqo haye wuxuu ku leeyahay dhawaaqa soo yeeraya adduunka markaan YouTube galo markaan Google galo oo waxyaabo akhriyo waxay dadka leeyihiin sanadka soo socda iyo sanadada soo socda ilaahay idmo waxa la gaarayaa 10 qofba 9 qof inay cariiri ku noqonayso noloshay maanta ku nool yihiin inay maintain garayaan maintain waxa waaye inaad haysatid inaysan wax ka bedelin 90% dadka adduunka ku nool sanadka soo socdo iyo waxa ka dambeeya waxa cariiri ku noqonayo noloshay maanta ku nool yihiin inaysan maareyn karin subhanallah ilaahi subhanahu wa ta'ala laga mangaliyo maxaa kale waxay sheegayaan uu yiri dadka cilmi baarista ah inay dhici doonto waxa la yiraahdo food shortage in ay yaraan doonto cuntadii cunto in la weyn doono ma xawsataan markii cudurkan uu bilaamay dukaamada in laga dhameysto wax alaale wixii clinics-ka ahaa wax alaale wixii cabitaan ma xawsataan maalin waxa xasuustaa ani abaay 5 dukaan aan tagnay clinics soo weyn meel kasta waa la dhameystay imagine cuntada cunaysa hadii saas noqoto bariiska la weyn doono sokorta la weyn doono caanihi la weyn doono subhanallah taasa soo socotay ku leeyahay food shortage wax la dhaho ayaa soo socdo haye aniga marka wuxuu ku leeyahay har iyo habeen suuxi markaa soo kaco ilaa habeenka wax kale ma sameeynayo intaas waxaan baarayaa YouTube-ka iyo Google ka baarayaa waxyaabaha soo socda waxa ay yihiin why I want to protect the business waxa rabaa ayuu yiri inti karaankayga ah in aan ka xifdisado ama aan ka gaashaanto wax saameyn u leh ganacsigayga adigaan maxaa lagaaga baahan yahay yiri saasoo kale haddaysan maanta indhaha iyo dhagaha ku furneen ogow adoo wax ogeen ayaa laga soo duldacan ka saleedaa alla waagi maxaa wuxuu sameyn waayay soo ina u jeedaan meesha wax u socoto ha ka seexanin uu ku leeyahay maanta haye aniga marka wuxuu ku leeyahay haddaana saas ahaan lahayn qof markasta wax baaro 2020 markii cudurka dhacday aad aragteen adduunka soo noqday annagana inaynu kor aadna maahina maalin hoos u aadin ilaahi subhanahu wa ta'ala ka sokoyaa sabab u ahaa asaga muxuu diyaarsaday system isla markii dadkii guriga fariisaa la yiri soo maaha zoom in allaale inta presentation ka sameeyo suuqa yeeray kulamaha la sameeyo why waan in already diyaarsan har iyo habeen ku ka shaqeynaya waxa ku soo wajahan sidii ooga gaashaaman lahaa haye
ku leeyahay marka you have the same responsibility adigana waxaa ku saaran xaqa aniga isaaran inaad ka gaashaamatid haddeertaan waxa soo socda haye taasi maxay ka dhigan tahay marka haba yaraatee inaadan isku hallaynin shaqo maanta inka maanta ku soo gala haba yaraatee ha isku hallaynin wax la isku hallayn kara maanta way tagta meesha maxaa marka u baahan tahay it's time to build your business yes maxaad u baahan tahay ganacsigaaga inaad dhisatid inaad dhexda xiratid in aadan jiif iyo joog shalay codka idin duubayo ma jirto fadhi wuu dhammaaday diidii ayaa la gaaray maanta marka kii aanan business haysanna inuu bilaabo kii haysta innagoo kalena dhexda dhuuqsada waay maanta haye ma sidee ku dhuuqsanaysaa we have to become loud yes waa inaynu dhawaaqeenna u dheeraadaa dhawaaqeenna maanta waa inuu dheeraadaa har iyo habeen inaad ka hadlaysid fursadda aad haysid fursadda aad haysid waa inaad ku dhawaaqaysaa ayuu ku leeyahay markas waa idiin sheegaa qofba qof intuu ka dhawaaq dheer yahay waa guaranteed ayuu ka faa'iido badanaya waa naxaa marka arka qof ganacsigan ku jiro pagekii facebook aan tago aanan haba yaraatee wuxuu soo dhejinaa arkin ama wuxuu soo dhejiyey 3 asbuuca ugu dambeysay maalinkii 3 iyo 4 wax ayuu kambanigeena soo dhigaa ma kalaan xataa inay wadaajiyaan so you have to become loud ku leeyahay maanta ma aha waqti aad aamusnaatid sidoo kale isbeddelka cusub oo inoo dhashay annaga sabtidii maxay noo ogolaanaysaa it makes it easier than ever to build your business isbeddelkan cusub package-yaashan cusub suuqyaashan cusub xarunyaashan cusub waxay inoo fududaynaysaa maanta in ganacsigeenni aynu dhisanno maxaa kale waxay u fududaynaysaa dadka cusbaa package-yaashan cusub iyo dhaqaalaha cusub la samaynayo in ay maintain gareeyaan their lifestyle in maanta noloshay ku nool yihiin aysan marna cariiri gelin soo xalkii laga baqaaya ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmaha kuu saaray haye annaga wuxuu yidhi markaan ganacsigaan dhisanaynay waa asaga 15 sano ahaa annagoo kale intuusan kombanigiisa furin 18 sano ka hor waxaa samayn jirnuu yidhi dadka waxaan markaan tusin jirnay balaanka qorshaha waxaan soo qaadan jirnuu yidhi compensation balankeen sida dhaqaalaha loo sameeyo waxaan ku xiri jirnay qofka hadda su wax u samayn karo qofka cusub 3 milyan laga samayn karaa waxay u tahay hawo maanta soo galay maanta maxaa samayn karaa waay soo waxa soo qaadaysaa yiri compensation planka iyo waxa isku xiraysaa qofkii baahidiisii maanta saa uga qabtari lahayd haye waxa marka samayn jiruu yiri laba maalin forensic training seminar 2 maalin la soconayso weekend waa waxa gabadha Vernisha oo joogto Solution ay u soo safartay intaasoo kumaankun ooga baxday ilaa iyo Toronto imaatay yes waxay fahansaneed hadday rabto inay ayada iyo meesha ay degan tahay islandka wax ka bedasho inay ninka milyaneerka wax ka soo barato kumaankun doolar dhigtay ilaa Canada u soo safartay taasi markuu wuxuu yiri waayaha ma sameeyeen hadda waxa rabeenaa soo celiyo dhowr sano u dambeysay forensic trainingkaas laba ishu socdaa ma ogtihiin uu ku leeyahay qofka maanta sanadkii sameeya 10 milyan haba yaraatee wuxuu kugu dhaamay inaysan jirin kaama xirfad badna ilaahi kaama jecla kaama hebelowsana kaliya maxaa waaye wuxuu raacay system jid loo jeexa ayuu raacay adiga maxaa lagaaga baahan yahay ku leeyahay systemkana idin jeexaya raaca waad ogaan doontaa meeshuu gaaro maxaa systemka ugu horeeyo forensic boxiga aan ku qoranayno warqadaha wax allaala dadkaan la hadalno oo every day shaqada noo taalo inoo soo saarayo waagii marka wuxuu yiri inta aanan sameynin forensiga hadda waxa laga dhigay wax caalami ah hal system jirta aniga aan isticmaalay oo forensiga ah laakiin hal nooc kaliya ahaa kaasna wuxuu ahaa pathway to 5-figure income jidka loo maraayo qofka inuu sameeyo 10 kun aan ka hadlayno waxa kaliya markaas haystuu yiri in aan u isticmaalo teamkayga
inaan u isticmaalo data ahaan markii waxa ma arkin oo la qiimeynayo waxa loo baahan yahay tirakoob tiimkayga u isticmaalo yiri tirakoob 14 qof waxa haysanuu yiri national marketing director adigoo dhahay 14 lifestyle advisor u haysta ka soo qaad haye abay farxaan waxay leedahay hadeertaan waxa haysanaa oil shortage yes gaaska dadka maxay oo qeylinayaan muxuu gaaska u kacay hadda wuxuu jeegayo hadday taagan tahay weli laakiin cunto la'aan maysa dhicin laakiin hadda oilkii waa runtaa $5 iyo maraya har iyo habeen dadka kor iyo hoos oo oynayaan gaariyaasha hadda waa la iska dhigay basas la raacaa lama gooyn karo soo wuxuu sheegaya haddaaba heenaaba su'aal kama taagna haye wuxuu dhahay marka 14 qof soo ka soo qaad 14 qof lifestyle advisor waaye waxa sameeyuu yiri marka 14 qof marka waxay ahaayeen uu yiri dad already sanadkii sameeyay 10,000 sanadkii yaa dhihin astaghfirullah bishii 10 sameeyay waxa hadda rabno inaynu gaarno haye waxa fiiriyuu yiri marka dadkaasay u sameeyaan 10,000 maxaa waaye maxay sameeyaan because remember waxani waa jil la maray ma aha qof special ah ma jirto qof ilaahay gooni u wata ma jirto haye marka waxa fiiriyuu yiri say ku sameeyaan waxaan ogaaduu yiri inta presentation ay sameeyaan asbuuci hore abay astaahil ayaa nooga sheekaysay asbuuci hore forensic training waa anaga sameeyay sababta ay tahay lama duubin laakiin wuu soo galay dhowr hadal uu la wadaagay hadalka la su'aashu weydiiyay waxa waaye annaga sideena dhaqaalaha inuu sameeyno ugu badan maxaa ka sameynaa qof wax uu soo qoriyay waxa iibiyo dadaan la wadaago no dhaqaalaheena wuxuu ka imaadaa presentation waayo kula tahay 4 jeerna asbuuci ganacsiga u sharaxno dhaqaalaheena wuxuu ka imaadaa presentation soo bandhiga ganacsiga haye waxaan ogaaduu yiri 14 qof oo bishii sameeyaan 10,000 in ay soo bandhigaan ganacsigooda ugu yaraan 2 jeer asbuuci 2 jeer ayay soo bandhigaan ganacsigooda haye hadda marka haddii la fiiriyo yiri xaaladda jirto maadaama dadka badankood ay lazy noqdeen guriga la iska fadhiyo loo bartay haddii aniga wuxuu yiri maanta aan ganacsigan ku soo biiro sida abaa ifraax caawa noogu dhalatoo kale waa brand new caawa aan soo galuu yiri qorshahaygaan samayn lahaa maxaa waaye balaanka aan samayn lahaa maanta haddaan ahaan lahaa qof cusub maxaa waaye part time serious ayay dadka badankood ku bilaabaan part time serious maxaa waaye qof hadda ifraax waa ardayad qof kale waxa laga inuu full time shaqeeyo howlo kale meel macallin ka yahay waxay doontaa noqoto si full time ganacsigan ogama shaqaysan karo laakiin wuxuu gelin karaa dhowr saacadood asbuuci haye uu gelin karaa part time serious kaas dad badan sometime ka iyo waxay isku khaldaan part time serious intiina aan daawan waxaa jirta video aniga aan sameeyay waxa la dhaho 8 categories of involvement 8 nooc looga mid noqdo ganacsigan dad badan waa sometime mararka qaarkood ay sameeyaan ganacsiga laakiin waxay ku leeyihiin part time ahay no part time waxa waaye dad waqti jidaystay ilaahu may ahaato 5 saacadood asbuuci 10 saacadood asbuuci laakiin aad joogteeya kuwaas allaha part time serious soo ka soo qaad maanta waxa ku soo gashay ganacsigan part time serious maxaa kugula talin lahaa inaad samaysid ugu yaraan asbuucii 3 presentation ma samaysid 3daas presentation marka mid kasta aad qof keentid ka soo qaad 3 marba hal qof aa haysatay badankee dhowr armartiya u yeernaaba waa inta ugu yar 3 maalmood ayaa asbuuc kasta sharaxdaa 3 qof ayaa keensatay markii la fiiriyo scientifically tirakoobka uu sameeyo 3 qof presentation marka u soo bandhigtid oo si cilmiyeysan ugu soo bandhigtid ugu yaraan mid baa ku dhahaya yes waa average-ka okay mid baa ku dhahaya yes haye halkii qof oo lifestyle advisor conversation plankeena cusub yaa soo qoraayo halkii qof oo lifestyle advisor keentay marka adiga tahay lifestyle advisor maxaad ka samayn kartaa
dilaalkaaga maxaa waaye ama commissionkaaga wholesale commissionkaaga yes walaalkay cabdiraxmaan 300 haye halkaa maxaa kaaga soo xarooday 300 waa wiig ugu horeeyay 3 qof oo soo barita ganacsigaaga most likely one will say yes okay mid baa ku dhahay yes halkaa maxaa kaaga soo aruuray $300 oo cash ah haye bisha ugu horeysa marka waxaynu dhahnay waxa sameyn kartaa 1200 see ku sameyn kartaa waa kana qorshige qorta asbuuc kasta 3 jeer soo bandhigeen 3 jeerkii soo bandhigta asbuuc kasta waxaynu dhahnay ugu yaraan hal qof yes ku dhahayo bisha maxaa ku jiro 4 asbuuc soo meeqa yes haysataa 1 2 3 4 qof midkiiba 300 ka sameynay halka maxaa kaaga soo baxay 1200 oo cash oo cad haye meeqa marka waqti ka gashay yes meeqa waqti ka gashay marka presentation keena cusub ayaan tiri markaan sharxay 30 daqiiqo u qaadatay Daniela oo ah sales development manager keena ayada 20 minutes ku sameysay markasta Soomaaliga iyo Ingiriiska Soomaaliga dheer soo 30 daqiiqo iska dhex meeqa saaca ka gashay marka 30 daqiiqo 3 jeer oo 30 daqiiqo ah asbuuci waa 1 saac iyo bar 1 saac iyo bar ku dhufo 4 asbuuc haye maxaa kaloo ku daraysaa question and answer dadka su'aalihii jawaabti ama testimoniyashi markii la soo aruuriyo halkii maraa present gareynaysa waxa ka gashay 1 saac soo 3 jeer sharxiisay waa 3 saacadood asbuuci ganacsigaaga 3 saacadood asbuuci muu qurtaa I love it ifraax mire 7 saacadood yeah 3 hours a week ganacsigaaga muu quri kartaa oo wili caada annaga waa lagu soo bandhigayaa walaalo experts halka ku soo fadhiyo shaqadaada maxaa waaye dadka casun hadhootina ka wardoon follow up maxaa kaaga baxay kulankii si macmiil kuugu noqdaan ama kuugu soo biiraan ama qof kale kuugu xiraan ayagana maxaa gelinaysaa haddii xataa qof kale kuugu xiraan forensic boxgaagi dhowr asbuuc kadib ayaa ka wardooni isbedelkaana dhacay ganacsi company-ga wuxuu ku fiicay maalin kasta wax cusub baxay soo waxa haysataa excuse waxa haysataa marmarsiya qof kula hadashid shalay waxa u sheegtay Malaysia hadda waxa leedahay India soo socoto ha bari waa Indonesia duu ilaahay Thailand soo markasta marmarsiya haysataa qofkii kula noqotid oo intaana ka dambeysay intaana isbedelaa dhacday adiga waxa laga yaabaa marka qofka la hadlaysay sida aba ifraaxina cusub tahay hadhowd ifraax markay noqoto lifestyle director 1 bil kadib 2 bil kadib qofkii ku noqonay maanta dhahay no waxa rabina kula wadaago wixii ka dambeeyay qof wuxuu leeyahay wow ifraax wixii sheegay waxba ka jiro haye soo taasi maxay ka dhigan tahay marka in la sameyn karo yes waa hadda qorshaha suu yahay ku raacaysid soo asbuuci 3 jeer ugu yaraan soo bandhigtid 3 marti markay ku imaato asbuuci ugu yaraan mid baa ku dhihi kara yes marmar maxaa dhici kara marka asbuuc waxa laga yaabaa 3 qof inta u yeertay aysan ka qaadan ganacsiga laakiin asbuuci kale meesha hal qof sugayso ugu yaraan 2 ay ku dhahdo yes soo markii la isku celceliyo waxay dhahaan the law of average numberada markii la isku celceliyo hadhowtu way iskeenayaan muhiimaddu maxaa waaye adiga processka suu yahay ku soco meel ku qoro asbuuci 3 marti ugu yaraan inay ganacsigaaga arkaan meel ku qoro hadhowti marka tirada ayada iskeenaysa okay soo bisha ugu horeysa 1200 saa ku sameynay waa clear way caddahay walaalkii Cabdiraxmaan uu soo qoray 300 ku dhufo 4 1200 waa ka maxaa kaloo marka aan kula talaayuna sameysaan waxa sameyn kartaa ayuu yiri look at your country income average wadanka aad joogtid income-ka dadka soo gala bal fiiri average-kooda hadda ayaan waxaan loo sheegay Thailand qofkii bishiis $600 sameeyo waa qof London
soo qof waxaa rabtaa Thailand joogay inaad u soo bandhigtid maxaad sameynay 600 waxaad divide by Somali divide maxaa lagu dhahaa u qaybinayso maaha 600 waxa u qaybinaysaa $300 okay 600 $300 u qaybi waa labo right haye halkaas marka maxay ka dhigan tahay qofka Thailand joogo laba qof oo lifestyle advisor hadduu bishi keeno wuxuu gaaray financial freedom subhanallah xorriyad dhaqaale ayuu gaaray ciduu u shaqeeyo ma leh by the way this is why Thailand network marketing MLM waa profession anaga profession waxaan u malaynaa dhakhtar iyo engineer may waa profession waa lagu faanaa aniga network marketing ka shaqaystaa okay so taa markaas sameysuu ku leeyahay waxay ku tusinaysaa inta presentation lagaa rabo inaad soo bandhigtid marka adiga hadda anagoo kale Canada $600 waxna ma goyso kirada xataa kaan bixinayso waxaa laga yaabaa qof Canada jooga American jooga maanta $1,000 hadduu extra sameeyo ama UK inuu happy ku yahay ha waxa idii hayaa marka scriptgan qorta dadka aad ku dhahaysaan script ay haysataan soo ka soo qaad qofkii $1,000 ayuu happy ku yahay dadka badankood $1,000 extra hadday helaan happy waay biilay ku bixinayaan wadanka way waxa u diraayeen grocery-gii maalin kasta iyo shopping-koodii sicir bar kor aadayo ku biirinayaan wuxuun bay kabaysaa $1,000 extra script-ga marka dhahaysid maxaa waaye ama hadalka qofka ku dhahaysid waxa ku leedahay hebelo I have a new plan that can get us $1,000 a month waxaan ku hayaa qorsho plan aynu ku sameyn karno bil walba $1,000 oo extra ah waxa hadda sameeyno $1,000 oo extra ku sameyn karno plankaasna it has a potential to pay $300 an hour qorshahaasna waxay haysataa si aad ku sameyn kartid halkii saac $300 xagee ka keenna halkii saac $300 waxaynu dhahanay qofkii marka u soo bandhigaysid remember dadkii marka u soo bandhigaysid ganacsiga asbuuci maxaynu dhahanay hal qof laga yaabo inuu ku soo raaco soo halkaas maxaa ka samaysay $300 soo halkii qof aad ganacsiga u soo bandhigtid 10-minute presentationkii su'aashii iyo jawaabtii hal saaca kaa galay soo maxaa leedahay waxa inoo hayaa qorsho bishii aan ku sameyn karno $1,000 extra saacadiina waxaa sameyn karnaa $300 I want to show it to you when is a good time waxaa raba inaan ku tusiyo goormaa kuugu fiican marka adiga waqtiga kuugu fiican yaa waay marka yaa waay qofka maanta intaa ku dhahdid waxaan ku hayaa qorsho aad bishii $1,000 extra ku sameyn kartid saacadiina $300 sameyn karto ku dhahay ma doonay inaan arko ma rabo inaan arko ma u malaynaa inuu jiro siiba maanta cariiriga adduunku jiro markii la fiiriyo qofkaas wuxuu ku leeyahay tusbal maxaa ka wadaa saacad $300 sameyn karaa maxaa ka wadaa bishii $1,000 sameyn karaa itus qorshaha balaanka ah oo ah lacagta maanta la sameynayo waa waxay dadku ugu jecel yihiin ha waxa fog iyo dhaxalgalka waa nice laakiin maanta maxaa sameyn karaa haye markii aad qofka qorshahan balaanka aad tusuu ku leeyahay waa automatic yes meel kastay dunida ka joogaan qof kasta maanta $1,000 extra wuu u baahan yahay ha adiga marka scriptigan aad qofka la wadaagaysid the whole point maxaa waaye to book the appointment qofka waxaan oo la wadaagaysa waxa waaye inuu arka fursadaadii 4 cisho inuu ganacsiga sharaxno saa ku keeni lahayd waaye ha soo qorshe fiican aan loo sameeyay kaale dhaqaale dhaxalgal samee maxaa ku bedelaysaa kaale aan ku tusiye bishii $1,000 soo u sameyn kartid saacadiina $300 ma ila fiirin kartaa qofkiyo dhag la qabta aan lahayn kulanka soo galaayo adiga shaqadaada maxaa waaye dadka inay kulanka soo galaan ugu yaraan 3 qof asbuuc kasta keenaa lagu yiri samee adiga yes natiijadii ay gacanta ku jirtaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala markasta muxuu nagu booriyaa si ogeena be process oriented not results oriented
marnaba ha isku xirin uu ku leeyahay natiijada waxa isku xirtaa processki asbuuci 3 marti keen waa sameynay ilaahi u daa natiijadii adiga yes the whole point waxa way marka to book the appointment saadadka ku keen lahayd kulankii haye dadka wuxuu ku leeyahay waxay ugu jecel yihiin ma jirto business plan qorshe business dadka waxay ka jecel yihiin male badankood maxay ku leeyihiin show me a road map and I will do it itus jidka anna waa sameynaya so adiga qorshahaaga inuu yahay qorshe cad ha allagaaga baahan yahay so bishii ugu horeysay halkaasoo oga baxnay scriptigaasna waa isticmaalaysaan haye 1200 waa samaysay alxamdulilah haye bishii labaadaa soo hartay 4 qof aa keentay bishaan maxay idinla tahay inay sameynayaan ayagana maxaase kula talinaysaa idhagayso bishii la soo dhaafa aniga waxaan sameeyey 1200 saa u sameeyena waa kan adiga hebel heblaayo iyo heblaayaa keenay ma jeclaan lahayd adiga inaad samayso 1200 yes waxaan sameeyey samee 4 asbuuc oo soo socdo 3 qof ugu yaraan waa inuu plaankaaga arkaa 3daas qof ugu yaraan mid ayaa kuu soo geli doona mid kastana waxaa kuu saaran 300 ha remember anaga ganacsiga anaga keenaynu faa'iido umaanu soo gelin dadkeenna faa'iidaan waay soo adiga 1200 markaa sameeyay inaa seexatid ma aha qof kasta keentaa tusinaysaa saana u sameey ha adiga iyo heblaayo intaana iga soo gashay adigana samee 4 qof oo ordayaan 4tooda ayagana keensanayaan haye 4 markay 4tooda keensadaan halkaas tiimkaaga intee uu maraaya 5 qof aheedeen awalka hore hadda waxaan ku soo biirtay 4 qof oo kale okay 9 qof amaraysa hadii laga saaro waa 8 qof haye 8daas qof marka qof kasta asagana marka uu sameeyo wixii aad samaysay waxa la yiraahdo duplication uu ganacsiga network marketing ku yahay number 1 industry oo soo saarta milyaneerka ugu badan waa kana waa leverage waa dad isku tagay oo wada shaqeynayo haye ayagii markuu qof kasta jeebkiisa gashtay 1200 maxaa kaloo halkaas ka dhalanayo CV saad ogtihiin qof kasta oo lifestyle advisor imaado maxaa ka imaanayo 300 oo CV lacagti caashka waxaan ahayn CV-na way kula socotaa haye 16 kaas qof marka qof kasta 300 CV ka soo aruurtay 16 markii lagu dhufto 300 halka maxaa ka soo baxay 4800 CV haye 4800 CV marka maxay isku bedelaysaa markii loo fiiriyo cycle-keena anaga waa cycle-ka saddexaad commission-ka loo sameeyo waa $220 soo lacagtii jeebka kuu galaysay waxaa hadda kuugu biiray commission-kii CV-gii haye dadkaas marka lacagta sameeyay adigana 220 ka samaysay maxaa haddana dhacaya dadkii 16kii si u sii socdaan 32 isku bedelayaan 64 isku bedelayaan 100 iyo intaas 20 isku bedelayaan saas u soconaysa right haye meeshii lagu gaaro marka bisha 4aad okay bisha 4aad meeshii lagu gaaro maxaa dhacaya in dadkii markay gaaraan 64 qof 64 qof qof kasta 300 CV ka soo aruuraysa commission-kii muxuu gaarayaa 7000 hadda waa binary commission-ka kaliya maxaa commission-ka kuu dheer marka smart buying because dadkii oo dhan maxay dukaankooda gashanooyaan 150kii oo mid kasta 69 CV ka imaanayso maxaa kaloo kuu saaran lacagtii dilaalka ahayd because shaqadii maada joojin by the way 1200 markaa heshimaa inaad seexanaysa tiim kaliya shaqaynayaan weli waa sameynaysaa weli 3daas qof waa keenaysaa isbuuc kasta 3 qof ganacsiga u soo bandhigaysaa weli way socotaa haye
commissionkii binarygii iyo markii la isku daro smart buygii soo aruurayay iyo markii la isku daro commissionkii kale oo ahaa dilaalkaagii halkaas ayay ka soo baxaysaa 10,000 haye qorshaha dhan oo naloo ka baahan yahay maanta laga bilaabo inaynu sameyno waa kaa very simple maxaa markii kuu bishaaraynayo ku leeyahay haddii maanta laga bilaabo aad samaysid ugu yaraan 3 qof aa ganacsigaaga u soo bandhigtay asbuuc kasta 4 bilood gudahood waxaan kugu bishaaraynayo ku leeyahay 10,000 aa raadinaysay inaa heli kartid qofkii ka gaabiya 3 asbuuc inuu heli karo ugu yaraan 50% 10,000 markii laba loo qeybiyo maxaa soo baxaya 5,000 wili ma xun tahay no wili waa full time income waa adigoo full time shaqeeya la mid tahay 10,000 waa double waa meesha aniga gaaray 2 sano ka hor markaan ka fariisto shaqada dawladda right dadka badankood 10,000 markay gaaraan waa financial freedomkii khalaas taasi maxay ka dhigan tahay waa seexanay no har iyo habeen ama shaqada ka istaaga ma aragteen no shaqadaada waa wadanaysaa haye soo qofkii xataa ka gaabiyuu ku leeyahay asbuuci 3 qof inuu usoo bandhigo haafuu samayn karaa 5,000 ugu yaraan muhiimadda un waxa waaye inay tahay processkii sidii la rabay inaad u maraysid ma aha dhowrkii asbuuca dad u yeeraa ama bishii 2 jeer oo ordaa no waa every day dadkaa la hadlaysid wuxuu ku leeyahay sidoo kale igama dhaadhacsiin kartaan maanta intaad isugu yeertaan dad isugu yeertaan 3 ka soo qaada 6 qof intaad isugu yeertaan oo u soo bandhigtaan ganacsigeenna iyo adduunka iyo fursadda aynu hayno aadan ka helaynin dadku dhahaya yes ma dhici karto waa waxa ay muhiim u tahay presentationka sida loo soo bandhigayo inuu qofka xariif ku noqdo waxa dadka soo jiidanaya ee kugu soo raacay wax kale ma aha waa presentationka soo annaga maxaynu haysanaa fursad walaalo waxaan expert ku ahda kuu sameynayo maxaa lagaaga baahan yahay dadkaagii la hadal asbuuc kasta 3 marti in aadan lagaa waayin okay 4 cishaynu sharaxnaa ganacsiga haddaa dhahda 4 ma soo geli karo 3 maalmood ugu yaraan waa inaad soo gashaa kulan kastana ugu yaraan 1 qof kugu jiraa and the more aad samayso kulamadan hadhowdi maxaa dhacayo the law of average koru aadayaa okay so waxaa laga yaabaa hadda markaa usoo 10 qof usoo bandhigtidba 1 ama 2 inay ku dhahayaan yes no 10 qof yaa dhihin 40 qof okay 40 qof usoo bandhigtid asbuuci maxaynu dhahanay 3 qof so 3 qof haddaa loo soo bandhiga asbuuci bishii maxaa waaye 12 qof aa dhahnay right yes so 12 qof 12 qof marka 3 qof uu yiri aa ku dhihi karta yes halkaas ma weligaa joogi may heer waxa gaari kartaa ay 12 kaas qof ugu yaraan 8 qof ay ku dhihi doonto yes 9 qof yes ku dhihi doonto yacni numberka wuu sii badanayaa okay so intaas kaliya waa qorshaheena maanta qorshe kale oo inoo hayo ma laha okay qof kasta in uu ku dadaalo siduu u soo bandhigi lahaa ganacsigiisa ugu yaraan 3 jeer asbuuci kulan kastana uu marti keeno hadhowdina ay ka wardoonti follow up okay intaasaan maanta inaan idinla wadaago iyo scriptigaas yarka inaa xusatid okay so intaan recordingka joojinin yaa jecel inuu wax nagu darsado kulankan maxaa kaaga baxay ama ha noqdo kii agaasimaha dadka ku jiray oo live-ka u daawanayay iyo midkaan hadeertaan okay maxay idinla tahay dareenkiina maxaa waaye qorshahan muxuu idinla yahay ma jiraa qof rabo inuu wax nagu darsado ama su'aal ka qabo waxaan sheegay sometimes su'aalna way noqon kartaa
okay so waxaan u malaynayaa waa dhiragteen qof kasta buugi qalinkiisu soo qaadanaya marka forensigaaga la soo bax listigaaga la soo bax insha allah waa bilaabaysaa okay saynu ognahay hadduu ilaahay ma berri jimco maalmaha la sharxay ka mid tahay iyo sabti soo labadaas martidaada yaa la waayeen talaadada kadaalig iyo arbacada hadduu ilaahay muso asaga wuxuu yidhi 3 jeer annaga hadda waxaynu maraynaa 4 so still maalin ayaan dheernahay markasta waa idiin sheegaa kombanigaasoo dhan annagaa ka howl badan no wonder number 1 teamka u galnay yes you see qof intuu ka badsado waayo ma ahina waa ka xirfad badan tahay ma aha okay waxaa gacanta u taaganta walaashay maryan jaamac maryan soo dhawow macaanto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيم مرتكو جرت ماشي وايد سلامي ووالاشي مريم محمد كسالي سأروى ارفح الله مبارك ما شاء الله رؤوس عليه ولا شيء جزاك الله خير سانوك سوكل دقدقتي إن ما شاء الله وحالنا هنا ما انت لقى بالله وإن بوقي قلن كنا وضنا وإن بورشون كيجينا مركز سما عن جد مرينا حداد قاس قادميسي حداد شوبين قادميسي بورشون يعني وحيالها أو علابهنا نوع صوران واي هدي فاشكل لا هدي هالفيجا لا هاي وحرب نوع صوريه إيه بسنس كاكاجا مركز تبا استبوت واسيد ولاشين ارفح ما شاء الله وحيال بدل نصب بندقتي ما انتهى دي كانوا قاعد واي بقول كنا مريا ما شاء الله وأكو فرح سنة هاي سيد ولاشين noogu soo bandhigtay hore aan u wada soconnaa leenahnay waxaan rabay bas intaa yarta inaan ku biirsado oon dhahaa markasta booshoorka waa alaabaheena buugasha uu ku sawiran yahay jeebkaaga ku rido adigoo socdo maxaa ku dhaha adoo dukaan galayo adoo gaas qaadanayo meel kasta sheerigaraya makhaayad baa aadaysaa sidoo kaleeta haka xishoonina waa laga xishoonaya marka horena ku niyu ku marka kale laakiin insha allah waa la qabsan doontiin inta ku cusub waxaa leeyahay oo ka tahay walaasheen irfax masaxafsa irfax sama kasoo UK kasoo gashay xaleenane soo dhawo walaashay gacan furan meel ugu fiican oo walaalaha kula garab qabanaya adduunka dacaladeeda meel kasta adduunka degan yihiin baa kugu jooga qolka soo dhawo baan leenahay walaasheen absolutely فرحي soo dhawo rooga cas waa lagu dhigay ma sha Allah waqti fiican baa ku soo aaday aad iyo aad abay Maryam waxay ka hadlaysaa broshooryasha waxa ay tusoo itaabsi ku ah guriga inaan ka tagin adigoo buwaagtaada wadanin ma sha Allah tabarakallah muna gacanta u taagan tahay muna soo dhawo macaanto السلام عليكم فرحي وين مكشف فرحي si fiican macaanto طيب ما شاء الله thank you أبا جزاك الله خير سوحي شرحيسي ما شاء الله سوحي شرحيسي أمنيو بانهاي وحي سوى أسفنتي قبل أباير خضراء ما شاء الله تبارك الله thank you سوحي شرحيسي الله يكتب سوحي شرحي ما شاء الله it's good business ما شاء الله thank you adiga mudan muna macaanto adiga mudan welcome home insha Allah waxaan rajeynaa mar dhow ku soo dhaweyn doona adigana أيوة سو dhaweyn sida الله يكتب ما شاء الله waxa la xiriiraya khadra insha Allah thank you ما شاء الله أديك مدن welcome حقي جوكتا معانتو مينيابوليس ما شاء الله مينيسوتا وايدين سو صعنا أدين كنا إن شاء الله إن شاء الله وانت منسولي وين أخذ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله I love it أباي قطر هنبلي لأن هاي ساسا مرتدينا ترينياشينا حتى مالمها توبرك مرتدى حتى وفرنتها وقادة ولا سوء دويا هاي إن شاء الله هلك سوكو إكيسينينا كلن كينا مانتا recording marra inuu ku dheeraado walaalaha YouTube naga daawanayo soo maxaa balanteena ay tahay abay naciim waxay tiri aniga 11 daris ah ayaan balan u dhiganaa xisaabta iskaga kay dhaqsaan iskaga kay khaldamaan ma ka wadaa okay exactly waxa waaye forensic boxiga hadaadan haysan waxa bay sheegaysaa dhacayso dadku way ka darsamayaan laakiin markay ku qoran yihiin aad iyo aad u fududahay okay calendarkana waa la gashtaa hebel iyo heblaayo marka insha Allah binahi kariim saasa inoo balana okay asbuuc kasta saddexdaad marti keenso insha Allah adoo waxaad arkaysaa ugu yaraan asbuuc kasta hal qof ku dhahayo yes insha Allah okay khayran kaga tagaya maalin wanaagsan galab wanaagsan habeen wanaagsan insha Allah iyo to the billion hadu ilaahay idmo salaamu calaykum